Wararka ka imanaya dagaalka u dhexeeya TPLF iyo Itoobiya ayaa saacadihii la soo dhaafay aad u sii xoogaysanaya. Shalay unbay ahayd markii TPLF ay sheegtay inay qabsatay magaalada Dese, oo ah magaalo muhiim u ah labada dhinac ee dagaalamaya, isla markaana ay u sii gudbayaan magaalada Komboloj ee deegaanka Amxaarada. Sidoo kale xukuumadda Itoobiya ayaa goor dambe oo xalay waxay soo saareen war-saxaafadeed ay ku beeninayaan qabsashada TPLF ee Dese. Wasiirka warfaafinta ee Itoobiya oo saxaafadeedkan jeediyey wuxuu hanjabaad u diray warbaahinta maxalliga ee ka hadasha dagaalka Itoobiya iyo TPLF, isagoo oo sheegay inay buunbuunin ku samaynayaan wararka TPLF. Sidoo kale waxa iyaguna digniintan loo diray shakhsiyaadka ku sugan Itoobiya ee ka been sheegaya dagaalka lagula jira TPLF. Waa sida uu hadalka u dhigay wasiirka warfaafinta ee Itoobiya. Wakaaladda wararka Itoobiya ee marka magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaano ENA ayaa sheegay in dagaal badan kadib ay ciidanka dowladdu la gacan ku haynta magaalada Dese. Dhanka kale BBC-da laanteeda ku hadasha afka Oromada ayaa iyaguna waa berigii hore ee saaka sheegay in ciidanka dowladdu ay gacanta ku hayaan magaaladaasi. TPLF oo goor dhoweed iyaguna baahiyey sawirro ayaa waxay sawiradaasi ku soo galeen duleedka magaalada Komboloj oo 17 kiilomitir u jirta magaalada Dese, halkaasi oo ay ku yaalaan warshado waaweyn oo soo saara waxyaalo kala duwan, kuwaasi oo dalka laga hirgeliyey sanadihii u dambeeyey. Dagaalka ayaana hadda si toos ah uga socda duleedka magaalada Komboloj. Taasina waxa ay gebi ahaanba meesha ka saartay wararka sheegaya in TPLF ay dib uga noqotay magaalada Dese kadib markii goor dhoweed ay baahiyeen sawirka ay ku galeen wadada xadiidka ee loo yaqaano Haraago oo ah duleedka magaalada Komboloj. Dhanka kale ciidamada cirka ee Itoobiya ayaa iyaguna goor dhoweed duqeyn cirka ka fuliyey magaalada Makale ee caasimadda deegaanka Tigray, walow ay dowladdu ku andacoonayso inay beegsanayaan goobo hubka lagu kaydiyo oo ay leedahay TPLF. Dhanka kale dowladda Maraykanka ayaa maanta baaq adag u dirtay TPLF. Baaqan ay soo saareen waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu yidhi jabhadda TPLF waa inay hakiyaan ku suqitaanka deegaanada Amxaarada iyo Canfarta. Maraykanku waxa uu sidoo kale ugu baaqay muwaadiniintiisa ku sugan deegaanada Tigrayga, Amxaarada iyo Canfarta inay si degdeg ah u tagaan goobaha ay ku sugan yihiin hay'adaha qaramada midoobay si ay uga helaan magangelyo. Safaaradda Maraykanka ee Addis Ababa waxay sidoo kale sheegtay inay si dhow la socoto xaaladda muwaadiniinteeda ku sugan goobaha uu dagaalkaasi ka socdo. Dagaalkan oo muddo sannada socda ayaan weli laga gaadhin wax natiija. Xayd-Gool, MMTV.